kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina hayso waxa u dooran gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan oo la kulmay heedaha samafalka Puntland oo amar dul dhigtay milkiilayaasha hoteelada gobolka Mudug ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo shirka furay Muqdisho dad shacab ah oo lagu laayay gobolka Shabeellaha Dhexe qarax la eegtay ciidamada dawladda ka tirsan iyo qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhinaca al-shabaab oo looga dhawaaqay gobolka Hiiraan amar la dul dhigay heedaha caalamiga ah ee ka howlgala gobolka Mudug Somaliland oo xayirtay gaadiid ka yimid dalka Djibouti wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo gaaray Jowhar lana kulmay madaxda Hirshabeelle dhinaca Puntland oo xilka qaadis iyo magacaabis sameeyay maamulka Hirshabeelle oo beeniyay warar laga faafiyay iyo dawladda Soomaaliya oo safiir cusub u magacawday dalka Mareykanka intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina soo kooda ugu dalka hadii aad ka mid tahay saaxiibadina cusub ee bartan YouTube fadlan subscribe si aad u hesho wararka ugu dambeeya caalamka markaan soo galno bartan YouTube-ka markaan daawadayaal ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa xafiiskiisa waxa uu kula kulmay heedaha ka howlgala deegaanada gobolka Hiiraan kulanka ayaa ahaa mid ay isku baranayeen gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiinta heedaha ka howlgala gobolka iyo sida ay u wada shaqeyn karaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Hirshabeelle Cali Maxamed Caraale ayaa sheegay in heedaha uu kala hadli doono sidii ay u caawin lahaayeen dadka danyarta ah ee ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa ka barakacay dagaal beeleedii ka dhacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in heedaha samafalka ay adeegyo wanaagsan u hayaan shacabka gobolka Hiiraan isla markaana ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heedaha uu la kulmay ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen inay si hufan ugu adeegi doonaan shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle dagaalka dhinaca al-shabaab ayaa looga dhawaaqay gobolka Hiiraan taliyaha guutada shanaad ee gobolka Hiiraan Cornel Farax Cali Waasuge ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolkaas ku sugan iyagoo ka wada hadlay howlgallada ka socda gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle taliyaha ayaa sheegay in dhawaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan ay ka bilaabi doonaan howlgal ka dhinaca ururka al-shabaab isla markaana si wada jir ah u fulin doonaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala gobolka Hiiraan taliyaha qaybta 7-aad ee gobolka Hiiraan General Ahmed Maxamed Cali Sowtreedsho ayaa dhankiisa sheegay in uu socdo qorshaha al-shabaab looga saari lahaa dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin waxaana ciidamada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan howlgalkaas General Ahmed Maxamed Cali Sowtreedsho ayaa sheegay in ciidamada ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaal ay dhawaan kula galeen al-shabaab tuulooyin hoostiga degmooyinka Maxaas iyo Buulaburde ee gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeelle ayaa beeniyay warar laga faafiyay maalmihii la soo dhaafay waxa warbaahinta qaar ee dalka ay baahisay in khilaaf uu soo kala dhaxgalay gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle sidoo kale uu jiro mooshin laga diyaarinayo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas Ismaan Barre asaate wararkaas waxa beeniyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi waxa uu sheegay inuusan jirin xilligan wax khilaaf ah oo u dhaxeeya gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in aan wax aan jirin laga abuuray maamulka Hirshabeelle isla markaana ay diyaar u yihiin wadajirka iyo horumarka maamulka Hirshabeelle sidoo kalena ay socdaan shaqooyinka baarlamaanka iyo tan madaxda sare hadalka ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa daba socda kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay socotay hadal hayn ku aadan inay jiraan xildhibaano mooshinkooda gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Ismaan Barre Maxamed Puntland ayaa amar dul dhigtay milkiilayaasha hoteelada gobolka Mudug wareegta labaad ayaa isla maanta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Ahmed Muuse Nuur taas oo ku socota milkiilayaasha hoteelada ku yaala degmooyinka gobolka Mudug milkiilayaasha hoteelada ku yaala degmooyinka gobolka Mudug ayaa lagu amray in hoteeladooda aan lagu qaban karin shirar aysan ka warqabin maamulada degmooyinka gobolka Mudug sidoo kale markan ayaa waxa la ogeysiyay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Mudug waxaan la faray in amarkan dhaqan galiyaan dhinaca kalena maamulka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray amar ku socda ciidaha ka howlgala gobolkaas kaas oo ku saabsan howlaha shaqo oo ciidadaas ka hayaan guud ahaan deegaanada gobolka Mudug wareegto ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Ahmed Muuse Nuur ayaa hay'adaha lagu wargeliyay in dhaqdhaqaaqooda shaqo u soo gudbiyaan maamulka gobolka si ogolaansho loo siiyo sida shirarka seminaarada iyo safarada intaba gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Mudug ee Puntland ayaa la faray in hay'adaha caalamiga ay kala shaqeeyaan una fududeeyaan howlaha ay u hayaan shacabka ku nool gobolka Mudug wararka Puntland ayaa daawadayaal ku jirnay madaxweynaha Puntland ayaa xilka qaadis sameeyay isagoo sidoo kalena magacaabis sameeyay
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu xilkii ka qaaday agaasimihii ciidanka badda Puntland Cabdiraxmaan Xaaji Xasan isaga oo magacaabay agaasimo cusub. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo aan weli warbaahinta loo soo bandhigin ayaa waxa xilka agaasimaha ciidanka badda Puntland ayaa loogu magacaabay Cabdirabbi Cismaan Maxamed. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu waday isbedelo dhanka hay'adaha maamulkiisa ah waxa uuna dhawaan magacaabay agaasimayaal iyo hantidhowrka guud ee Puntland. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa gaaray Jowhar isagoo kulamo halkaas mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle kula yeeshay. magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan iyadoo si weyn loo soo dhaweeyay. madaxweynaha Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka iyo mas'uuliyiin kale ayaa garoonka Jowhar ku soo dhaweeyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoo la geeyay xarunta madaxtooyada Hirshabelle. wakiilka ayaa kulan la qaatay madaxda Hirshabelle iyadoo laga wada hadlay xoojinta wada shaqeynta howlgalka qaramada midoobay iyo maamulka Hirshabelle. waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa wakiilka howlgalka qaramada midoobay ee Hirshabelle Mr. Benjamin. boqoshada James Swan ee Hirshabelle ayaa noqonaysa safarkii saddexaad ee uu ku tago dowlad goboleed iyadoo uu hore u tagay dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland isaga oo kala hadlay arrimo dhowr ah. waxa Puntland kala hadlay mashaariic qaramada midoobay ee ka wada deegaanada maamulka Puntland halka Jubaland la sheegay inuu kala hadlay arrimo ay ka mid tahay doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Somaliland ayaa xeertay gaadiid ka yimid dalka Djibouti. wararka ka imaanaya magaalada Looyacaddo oo ku taala inta u dhaxaysa dalka Djibouti iyo Somaliland ayaa waxay sheegeen in gaadiid fara badan oo ka yimid dalka Djibouti uu ka xiran yahay Looyacaddo. gaadiidkan oo sida rakaab kala duwan ayaa la sheegay in sababta wax yaran yihiin ay qayb ka tahay kadib markii magaalada Looyacaddo maamulkeeda ay ku soo rogeen inay darawalada gaadiidka bixiyaan lacag taas oo gaaraysa ilaa $3. taatay waxaa la sheegay in darawalada ay taasi ka biyo diideen isla markaana gaadiid fara badan oo ku wajahnaa deegaanada Somaliland ay muddo 3 cisho ku xayiran yihiin magaalada Looyacaddo. mid ka mid ah darawalada gaadiidkaas oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha deegaanada Somaliland ayaa waxa uu sheegay in maamulka magaalada Looyacaddo iyo taliska booliiska ay isku khilaafsan yihiin lacagta laga qaadayo gaadiidka. warar kale oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ay kulan gaar ah yeesheen maamulka magaalada Looyacaddo iyo darawalada gaadiidka kaas oo la filayo in go'aano laga soo saaro si gaadiidkaas xayiran ay wadada u maraan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shirka furay magaalada Muqdisho. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furay shirka dardargelinta iyo fulinta qorshaha dib u soo kabashada iyo adkeysiga afooyinka. munaasabada daafurka ayaa waxaa ka soo qayb galay beesha caalamka mas'uuliyiin ka socday wadamada saaxiibada la ah dowladda ee ka taageera mashaariicda horumarineed iyo bini'aadanimo. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in abaaraha soo noqnoqday iyo fatahaadaha ka dhasha roobku ay dhibaato badan ku hayaan dhaqaalaha bulshada ayna abuuraan barakacyaal cusub. sidaa daraadeed loo baahan yahay in si dhaqso ah loo dhaqan geliyo qorshahan la daafurogay maanta. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in si wadajir ah looga gaashaanto dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo fatahaadaha si wanaagsanna loo maamulo biyaha roobka si ay uga wada faa'iidaan xoolaha dhaqatada iyo bulshooyinka ku nool miyiga iyo magaalooyinka. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka qaybgalayaasha shirka ku dhiirigeliyay in ay fikradahooda isku biiriyaan oo ay soo saaraan xal miro dhal u noqon kara maareynta dhibaatooyinka laga dhaxlo abaaraha iyo fatahaadaha. qorshaha dib u soo kabashada iyo adkeysiga aafooyinka dalka oo ay diyaarisay wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ayaa saldhig u noqonaya hanaanka lagu maareynayo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee laga dhaxlo abaaraha iyo fatahaadaha roobka. dad shacab ah ayaa lagu laayay gobolka Shabeellaha Dhexe. maleeshiyada hubeysan ayaa duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ku rasaaseen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana rasaasta ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho dhaawac. gaariga la rasaasay oo ahaa nooca Soomaalida u taqaano Humeeda ayaa xilliga la rasaasinayay waxa uu marayay tuulada Xonshooley waxaana la xaqiijiyay in ilaa 3 ruux ay falkaasi ku geeriyoodeen tiro in kalena ay ku dhaawacmeen. mid ka mid ah ehelada dadka gaariga lagu rasaasiyay ayaa sheegay in maleeshiyaadka ay marka hore darawalka gaariga ku amreen inuu joojiyo hase yeeshee uu ka dhig adeegay sidaasna rasaas loogu furay. waxa uu sheegay in 3 ruux oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney ay ku geeriyoodeen rasaasta lagu furay gaariga halka ruux kale uu dhaawac soo gaaray kaas oo loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho ku yaal. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Balcad ayaan weli ka hadlin rasaasta ay maleeshiyaadka hubeysan ku fureen gaariga ay saarnaayeen dadka shacabka ah marayay
meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa safiir cusub u magacaaday Mareykanka. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanad kadib waxay safiir cusub u magacaaday dalka Mareykanka. xilkaas oo banana waxaana loo magacaabay inuu booskaas buuxiyo Ali Shariif Ahmed. muddo sanad ah Soomaaliya wax safiir ah kuma lahayn dalka Mareykanka kadib markii safiirkii u joogay dalkaasi Mareykanka Ahmed Ciise Cawad loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. safiirka cusub ee Soomaaliya u magacaaday dalka Mareykanka Ali Shariif Ahmed ayaa horay wuxuu u soo noqday safiirka Soomaaliya u fadhiya dalalka Itoobiya iyo Faransiiska. waxa uu haatan u noqday safiirka Soomaaliya u fadhin doona Mareykanka. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa muddo 4 sano ah hayay xilka safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka oo loo magacaabay sanadkii 2015. dhawaan ayaa la filayaa in danjiri Ali Shariif Ahmed uu u amabaxo dalka Mareykanka si uu ula wareego shaqadii safiirnimo isla markaana uu u guto waajibaadka qaran ee loo igmaday. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tan intii jirtay waxay safiiro u magacaaday dalal dhowr ah waxaana safiirada la magacaabay ugu dambeeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. warkii oo idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.